waxaa magaalada Jigjiga ka qabsoomay daafurka mashruuca maareynta khatarta masiibooyinka oo loogu talagalay in looga faa'iideeyo 10 degmo oo kamid ah deegaanka kuwaas oo ay inta badan saameeyaan masiibooyinka dabiiciga ah iyo kan dadsameega ahba ujeedada ugu muhiimsan ee mashruucan ayaa ah sidii kor loogu qaadi lahaa awoodda degmooyinka ay ku soo noqdaan masiibooyinku gaar ahaan bulshada xoolo dhaqata beeraleyda ah waxaana kulankan isugu jira daafurka iyo aqoon isweydaarsiga ka soo qayb galay madaxweyne ku-xigeenka deegaanka Soomaalida mudane Ibrahim Cusmaan komishineer ku-xigeenka komishinka maareynta khatarta masiibooyinka dalka mas'uuliyiinta iyo howlwadeennada xafiiska maareynta khatarta masiibooyinka ee deegaanka mas'uuliyiin heer deegaanaha xafiisyada bahwadaagta qaar kamid ah maamulada gobolada iyo degmooyinka deegaanka xubno ka socday hay'adaha qaramada midoobay iyo midowga Yurub madaxweyne ku-xigeenka ayaa ku booriyay in mashruucan lagu bixiyo dadaal fara badan si loo gaaro natiijooyin wax ku ool ah. I would like to express my gratitude to the European Union for their unwavering support to Ethiopian government and to Somali region state in particular. waxaan jeclaan lahaa inaan u mahadceliyo midowga Yurub taageerada aan kala go'al lahayn ee ay u fidiyeen dawladda Itoobiya gaar ahaan deegaanka Soomaalida waxaan si weyn u qadarinayaa ka qayb qaadashada iyo taageerada kaalmada bini'aadanimo iyo tan horumarineed gaar ahaan barnaamijka yareynta halista masiibada deegaanka Soomaalida ayaa ka soo kabanaya khilaaf daba dheeraaday oo ay weheliso aafooyin dabiici ah oo baabi'iyay maaliyadda dhaqan-dhaqaale waxa badanaa deegaanka ka dhaca masiibooyin dabiici ah sida roobab mahigaan ah iyo daadad ayaa ah halista ugu weyn ee hortaagan xoolo dhaqatada iyo xoolo dhaqata beeraleyda deegaanka Soomaalida taasoo keenaysa in deegaanka Soomaalida uu xudun u noqdo dhacdooyinka masiibooyinka dabiiciga ah ee badanaa dhaca dhowrkii sano mar maadaama aanan ka hortagi karin masiibo dabiici ah taasoo abuuraysa awood hayadeed isla markaana bulshada ka dhigaysa mid u adkaysata masiibo soo noqnoqota si saameynta daran ee masiibooyinka si sax ah loo xakameeyo loona maareeyo ugu dambeyn waxaan ku boorinaynaa dhammaan badanayaasha iyo bahwadaagta mashruucan inay dadaal badan ku bixiyaan sidii loo gaari lahaa natiijooyinka la doonayo ee mashruucan waxaan rajaynaynaa in la muujiyo mashruuc guul leh kaasi oo waxyeelada aafooyinka dhici kara ay bulshadu kaga gaashaaman karto dhankooda waxaa si wada jira uga hadlay mashruucan wasiirka xafiiska maareynta khatarta masiibooyinka deegaanka iyo komishineer ku-xigeenka komishinka maareynta khatarta masiibooyinka dalka guud ahaan mashruucan waxa laga fulin doonaa 10 degmo kamid ah deegaanka 10 degmo runtii lagu xushay qaab fiicana criteria cad oo la diyaariyay oo mashruuca technical teamka naftirkooda iyo deegaan ahaan baynu uga tashanay 10 degmo degmooyinka inta badan ay ka dhacaan masiibooyinka ah ama ku soo noqdaan ama abaar ha noqoto ama fatahaad ama waxyaabahan isku dhacyada keena ee kheyraadka la xiriira marka ujeedada guud ee mashruucan waa in kor loo qaado awoodda fulneed ee xafiisyada ama hay'adaha dawladda heer deegaan heer gobol iyo heer degmo isla markaana si ay awood ugu yeeshaan ay ku maareeyaan markay khatarta timaado marka taayadoo laga duulaya ayaa waxa la doonayaa in la kordhiyo awoodda fulneed gaar ahaan degmooyinka si markaas ay uga gaashaantaan ama awood ugu yeeshaan inay jawaab celin dhaba ka bixiyaan marka guud ahaan mashruucan wuxuu wajihi doonaa xaaladaas waxa inta badan la diyaarin doonaa amaba laga shaqeyn doonaa qaabkii xafiisyada heer degmo iyo heer deegaan bay uga wada shaqeyn lahaayeen inay yeeshaan qorshayaal cad in la darso baahida iyo dhibaatooyinka markaas la soo darsayay bulshada waxa iyadana barbar socdo qaybaha bulshada naftirkooda inay qayb ka noqdaan si ay awoodooda kor loogu qaado isla markaana saameynta mashruuca ama dhibaatooyinka masiibooyinka wax looga qabto. As you may all know, Ethiopia has different policies in place, and more importantly, the disaster risk management policy, which has fastened on the paradigm shift. sidaad wada ogtiin Ethiopia waxay leedahay siyaasado kala gedisan oo ugu muhiimsan ay tahay siyaasadda maareynta halista masiibooyinka ku xiran isbeddelka ka imaada maareynta dhibaatooyinka si loo maareeyo halis iyadoo ah mid ku sii socota dalka siyaasadda iyo istaraatiijiyadda waxaanu bilownay hirgelinta barnaamijkeeda istaraatiijiyad iyo qaab dhismeedka maalgashiga Ethiopia waxay ka mid tahay wadamada Afrika ugu horeeya ee leh tilmaam wanaagsan oo lagu gaarayo himilada gaadhista wadamada dhaqaalahoodu dhexdhexaadku yahay sanada 2025 Ethiopia waxay sidoo kale u nugushahay masiibooyinka noocyada badan oo dabiiciga ah iyo kan dadsameeyga ah gargaarka bini'aadamnimadu badbaadin ay sameyn kartaa laakiin ma keeni karto xal waara
maadaama isbeddelka cimilada uu xaaladda ugu sii darayo dabiiciga meertada ah ee naxdinta cimilada ayaa saameyn dhaqan-dhaqaale oo ba'an ku reebi karta dhaqaalaha dalka sidaas awgeed dawladdu waxay si xoog leh ugu shaqaynaysaa sidii loo maareyn lahaa khataraha iyada oo la xoojinayo qaab dhismeedka hay'adeed iyo kan dawladnimo ee ku aadan aragtida khataraha musiibooyinka sidoo kale waxaan si dhow ula shaqaynaynaa qaybaha horumarinta sida ururka midowga Yurub oo diyaarinaysa istaraatiijiyada sanado badan wax looga qaban karo isku xirnaanta horumarka bini'aadamnimada waxaan xoojinaynaa gargaarka bulshooyinka u nugul dhibaatooyinka cimilada ee soo noqnoqda madasha ayaa lagu soo bandhigay sida ugu habboon ee mashruucani loogaga faa'iideyn karo bulshada loogu talagalay inay kaga gaashaantaan masiibooyinka soo noqnoqda mashruucan ayaana la rajaynayaa inuu wax weyn ka tari doono dhibaatooyinka ay sababaan masiibooyinka dabiiciga iyo kan dad sameega ah